Soomaalida oo barihii u dambeeyay dhibana u noqotay dunida gaar ahaan dalalka Carabta. Dalka Sacuudiga ayaa qurjari doona 45 dhalinyaro ah halka qaarkood uu laayayba kuwaas oo uu dil ku xukumay kana soo jeeda qoomiyadda Soomaalida. Haddaba waxaynu ka hadli doonaa dhalinyarada Sacuudigu dilka ku xukumay oo tiradoodu gaadhayso 45 dhalinyaro ah, magacyadooda iyo ardayada iyo reeraha ay ka soo kala jeedaan. Waxaan soo rajeynayaa in Ilaahay ka soo furdaamiyo oo ka soo daayo, maadaama dhalinyaradaas waxyaabaha dowladda Sacuudigu ku xukuntay marka aad aragto aad arkayso Sacuudiga sida ay uga go'an tahay xasuuqa uu u geysanayo dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Sacuudiga. Qaarkood ayuu ku xukumay waxaan la odhan karin way u qalmaan in loogu xukumo dil. Waxaase laga yaabaa Sacuudigu markan Soomaalida inuu dhibsaday oo uu doonayo 45 iyo qaar kale markuu ka dabageeyay oo uu diro aakhire inay Soomaalidu guud ahaan dalka Sacuudiga ka googoosato marka laga reebo xadka inay timaado ka soo laabato mooyaane. Haddaba magacyada iyo qabiilada ay ka soo kala jeedaan 45 dhalinyaro ee dowladda Sacuudiga dilka ugu xukumaan aan gudaha u galo. 1. Xamdi Cabdulaahi Cabdiraxmaan Sheekhaal Reer Qudbi. Maxamed Carab Cumar Cabdi Sheekhaal Reer Cabdi. Axmed Ibraahin Axmed Sheekhaal Reer Qudbi. Cumar Cabdicasiis Khaliif Sheekhaal Reer Cabdi. Axmed Maxamed Maxamuud Majeerteen Digfacle. Mustafa Cabdi Ismaaciil Akishe. Cabdiraxmaan Cali Maxamuud Cadow Dagoodi. Saransoor. Rabadaan Xuseen Geedi. Ciise Furlabe. Cabdulaahi Axmed Cali Dhulbahante Faarax Garaad. Ibraahin Cabdi Jaamac Dhulbahante Maxamuud Garaad. Faarax Jaamac Cumar Geri Kombe. Farxaan Cabdi Maxamed Khaliilna Samaroon Maxamed Case Reer Maxamed. Axmed Aadan Xasan Ducaale Samaroon Reer Maxamed. Cabdulqaadir Maxamuud Abaskuul. Cabdulqaadir Maxamuud Cali Harti Abgaal Agoonyar. Cabdulqaadir Ibraahin Axmed Cadow Harti Abgaal Abuukar Gaabane. Axmed Maxamuud Ismaaciil Cabdiraxmaan Raxanweyn Hadamo. Cali Cabdiraxmaan Mursal Aadan Raxanweyn Hadamo. Khaalid Cabdi Ibraahin Abaskuul Guuleed Jaamac. Jawhar Ibraahin Dayib Cabdulaahi Abaskuul. Xasan Cismaan Maxamuud Cabdiraxmaan Ibraahin Abaskuul. Cabdulqaadir Maxamed Xuseen Barre Ogaadeen. Mukhtaar Macalin Cabdi Ogaadeen. Maxamed Cali Xuseen Ogaadeen. Cabdulqaadir Axmed Yaasiin Ogaadeen. Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Ogaadeen. Cabdikaamil Maxamed Xuseen Ogaadeen. Cabdiraxmaan Cali Maxamed Ogaadeen. Cabdi Asad Axmed Sulub Ogaadeen Makaahil. Cabdiraxmaan Xasan Cumar Cali Ogaadeen Makaahil. Xasan Axmed Maxamed Ogaadeen Makaahil. Maxamuud Aadan Sulub Bile Ogaadeen Makaahil. Cumar Axmed Maxamuud Cali Ogaadeen Cawliyahan. Maxamed Bedel Aadan Faarax Ogaadeen Cabdalle. Maxamuud Axmed Yuusuf Ogaadeen Reer Cabdulle. Maxamed Ibraahin Cabdulaahi Ogaadeen Reer Isaaq. Rishaaq Cali Muuse Cawaale Ogaadeen Reer Isaaq. Sakariye Yaxye Muxsin Cabdulaahi Ogaadeen Reer Isaaq. Waliid Cabdi Jadiidow Cabdisamed Ogaadeen Reer Isaaq. Ismaaciil Aadan Saabir Burhaan Ogaadeen Reer Isaaq. Cabdiweli Maxamed Cabdi Ogaadeen Reer Cabdulle. Xuseen Mahdi Boore Ogaadeen Reer Cabdulle. Axmed Cali Maxamed Cabdiwaaxid Ogaadeen Reer Cabdulle. Bashiir Maxamed Cabdulqaadir Saalax Ogaadeen Reer Cabdulle. Axmed Aadan Ibraahin Ogaadeen Reer Cabdulle. Maxamed Nuur Xuseen Gacal Abgaal Reer Mataan. Marxuumkan ayaa isaga haddaba la dilay oo ay ku filiyeen xukunkii, wuxuuna ahaa ruuxii 45aad. 44 dhalinyaro ayaa imika hadhay kuwaasoo dowladda Sacuudigu doonayso inay qurgeyso. Dhanka kale halka ay maxkamadi ku socoto tiro intan leeg oo kale oo iyaguna ah Soomaali. Dowladda Sacuudigu markan waxay doonaysaa inay qurgeyso dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay ku qabato gudaha dalka Sacuudiga, iyadoo u sameynaysa dambiyo kala duwan. Nuxurka iyo muhiimaduna ay tahay dalka Sacuudigu hadda inuu qaatay go'aan ah Soomaalida
iyo Afrikaanka kale ee ku soo qulquliyay dalkiisa sidii isku nacsin lahaa. Sanadkii hore dowladda Itoobiya iyo dalka Sacuudiga ayaa si weyn isku seegay markii dowladda Sacuudigu 250 dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo kaliya ay ku xukuntay dil toogasho ah isla markaana ay ku fulisay 20 dowladda Itoobiya ayaa si weyn xilligaa uga xanaaqday. Ugu dambeyn dalka Sacuudigu 230 dhalinyaro ayuu markiiba u soo tarxiilay dalkoodii. Ma laga yaabaa xukuumadaha kala duwan ee Soomaalidu inay markan ka howlgalaan sidii dhalinyarada loo soo badbaadin lahaa. Waliba dhalinyarada qaar ayaa ah kuwa ehel ahaan isku dhow lagana soo qabtay hal guri. Dowladda Sacuudiga xilligan waxba kama gelin iyada waxa ka go'an sidii ay u qurguyn lahayd 45kaas. Haddaba sheegista qabiiladoodu kama dhigna qabyaalad ee waxaanu rabnaa inaad si fudud u ogaato reeraha ay ka soo jeedaan dadkani maadaama Soomaalidu qabiilo kala tahay. Dhanka kale in lagu baraarugo khatarta ay leedahay xilligan aaditaanka Sacuudiga marka laga reebo xilliyada cibaadooyinka gaarka la soo gudanayo sida xajka iyo cimrada. Markasta dowladda Sacuudiga iyadu waxay muhiimada siinaysaa sidii ay iskaga xaqi lahayd dadka ajaanibka ku soo qulquliyay dalkeeda iyadoo aan u eegaynin dadkaasi haddii ay yihiin kuwa aan dambi ka gelin dalkeeda iyo kuwa ka galayba. Sababtoo dowladda Sacuudiga waxay dhibaato ku qabtaa ama si weyn u diidan tahay isdhexgalka bulshada Afrikaanka ah ee ku qulqulaysa dalkeeda diinta ay doonaan ha haystaan. Waliba xoog waxa ay cadaadis u saaraysaa dadka Islaamka ah maadaama kuwaasi isdhexgalka ay ku yeelan karaan ay ka badanayaan kuwa kale. Waana takeentay in la arko inta badan dadka Islaamka ee Afrikaanka ee taga Sacuudigu inay la kulmaan dhibaato ka weyn dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka kale. Dowladda Sacuudiga mar walba iyadu waxay muhiimada siinaysaa sidii ay iyadu iskaga soo xaqi lahayd dadka Afrikaanka balse waxa waru yaala dadka Soomaaliyeed ee ogaaday maanta in dadkoodii halka lagu xasuuqayo ama se lagu leynayo kuwaas oo looga baahan yahay dadaalkii lagu soo badbaadin lahaa dadkaas. Dhammaantood Ilaahay ka soo saaray dowladda Sacuudigu markan waxay garaysatay Soomaalida inay si dhab ah isku barto. Inkastoo dowladda Sacuudigu habdhaqan ahaan dadka Afrikaanka ah Islaamka ee ku sugan gudaha Sacuudiga marka horeba ay ula dhaqanto si aan qurux badnayn. Tan iyo markii dowladdaasi shidaalka ay dalkeeda ka soo saartay waxaana u muuqataa Sacuudigu mar horeba inuu Afrikaanka u sheegay isaga dabicigiisa balse Afrikaanka lagu qaatay Sacuudiga. Dowladaha kale Carabtu dhaqano badan kala sinaadaan Sacuudiga balse waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin. Laakiin Sacuudigu isagu hal dhaqan ayuu leeyahay waana dal isaga lafdigiisa ay u talisay boqortooyo oo dadkiisa qaarkood ay ku hoos dulman yihiin kuwaas oo laga ilaaliyo xukunka sare ilaa iyo xukunka dhexe. Haddii boqortooyada Sacuudiga ka talisaad ka hor timaado ana tahay dhalad Sacuudiga laftigeeda waxa lagu qisaasi doonaa goob kasta oo ku sugan tahay. Taana waxa tusaale kugu filan dilkii Jamaal Khashoggi oo lagu dilay gudaha dalka Turkiga taasoo ahayd wax aad u yaab badan oo ilaa imika lagu wareersan yahay halka la geeyay meydkiisii. Waanu ducaynaynaa dadka Ilaahay inuu meesha ka soo furtaamay. maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha waxiine waa madal xoro furan la jaanqaad Durriya Village.